السلام عليكم وأنا مجيء موزة waxaad iga daawanaysan channelka Shumac Umada maanta waxaan idin wadaa barnaamij ciyaarihii xalay dhacay waxa la yiri iyo waxyaabaha laga calaamadeeyay marka daawasho wacan garsoore sheegay in ay ku badisay Real Madrid cadaalad daro kulankii xalay ee UEFA Champions League kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa guul daabi kaga soo laabatay wadanka Talyaaniga oo ay marti ugu ahayd kooxda Atalanta ayadoo ay xidigo badan dhaawac kaga maqnaayeen Los Blancos ayaa cabsi kaga qabtay weerarka halista ee Atalanta waxayna ka mid ahayd kooxaha ugu goolasha badan qaaradda Yurub markii laga hadlo laakiin waxay kooxda reer Spain la soo laabatay guul lugtii hore ee wareegga 16 ee Champions League ayadoo oo marti ku ahayd garoonka Atalanta ee wadanka Talyaaniga Zinedine Zidane ayaa ciyaartan haystay 11 xidig oo kaliya ee kooxda koowaad Real Madrid waxaan danta ku kaliftay Zinedine Zidane qaybtii dambe uu soo galiyay ciyaartoy daayar iyo Mariano Diaz oo aan ka mid ahayn ciyaartoyda u dooqiisa sababtoo way ku kaliftay sababtoo ciyaartoy ma haysto sida Karim Benzema Sergio Ramos ciyaartoy Eden Hazard Sergio Ramos Karim Benzema ciyaartoy badan ayaa ka maqnay sababtoo waxay danta ku kaliftay inuu soo wato ciyaartoy daayar aan u qalmin wuxuu haystay 11 ciyaartoy oo kooxda koowaad ee Real Madrid marka wuxuu soo watay ciyaartoy kamid ilaa iyo 7 ciyaartoy camal wuxuu ku soo watay naadiga Bida oo Real Madrid uu ku soo watay sida awgeeda garsooraha wuxuu yiri garsooraha oo Real Madrid oo inuu ku tilmaamay inay ku badisay cadaalad daro hadaladiisa waxa kamid ahaayeen garsooruhu wuxuu rumeysnaa in Mendy uu dhacay ayadoo uu haystay fursad cadaan oo goolka ku dhalin karay laakiin aniga waxay ila muuqataa in xadaaf yahay kaarka cas sababtoo wuxuu leeyahay kaarkan uu bixiyay garsooraha xaq muusan ahayn garsooraha magaciisa waxa la yiraahdaa Andujar oo inta raaciyay hadaladiisa ciyaartoyda Real Madrid xitaa si buuxda maamulka uma haysan macnaha wuxuu ka waday ciyaarta ma aysan ciyaareynin waxay ku dheelaysay oo kaliya garsooraha macnaha u kala waday saas uu ka wadaa waxayna cadaalad ahayd in kaarka digniinka la siiyo wuxuu leeyahay arbiteraha muusan garsooraha muusan xaq ku lahayn inuu ciyaartoyga uusan siinin roose sababtoo wax roose lagu bixi karo ma aysan ahayn sababtoo ciyaartoyga si fiican looma taabanin si fiican macnaha si oo bareer looma aadin sababtoo wuxuu leeyahay digniin bis oo lahaa sababtoo macnaha garsooraha wuxuu siiyay cadaan Real Madrid ayaa waqti dambe dhalisay goolka guusha waxaan u saxiixay Ferland Mendy oo laacibka lagu galay foulka oo roosaha oo u sababay in ay Atalanta roosaha qaadato waqti hore sababtoo u noqday in Atalanta ay kaarka cas qaadato Mendy ayaa ka dambeeyay in ciyaaryahanka uu rooso u qaato baashan uu sii jilay ma aysan ahayn garsooraha inuu siiyo rooso taasna waa cadaalad daro aan xitaa ku raacsanahay foul ma aysan ahayn wax jaalixta wax oo digni xitaa lagu bixi ma aysan ahayn wuxuu siiyaba kaarka cas oo siiyay taasna macnaha cadaalad daro way rasmi magacyada afarta ciyaaryahan ee ku tartamaya xidiga ugu fiican Champions League toddobaadkan oo la shaaciyay yay noqon doonaan afartan ciyaartoy oo la shaaciyay tolow iligista afartan xidig UEFA soo xulatay ayaa kala Olivier Giroud oo Chelsea lambar 2 waa dhaliyaha goolayaha ee Bayern Munich ninka laga yaaban yahay Roberto Lewandowski midka labaad midka saddexaad waa daafac midig ee City ee John Cancelo midka afraad waa ninkii xalayto lagu galay foulka oo Atalanta ay ku dhimatay roosaha kaarka cas ay ku qaadatay ninka lagu magacaabo Ferland Mendy oo Real Madrid ugu ciyaaro dambeedka bidix waxaan idin soo gudbin doonaa hordhaca labada kooxood ee caawa ku balansan tartanka Europa League labada naadi waxay kala yihiin Manchester United iyo Real Sociedad Manchester United ayaa lugta kula sii jirta hal lug wareega 16ka UEFA Europa League sababtoo lugtii hore waxa dhigaha lagu dhuftay naadiga lagu magacaabo Real Sociedad oo gurigeedii 4-0 loogu soo bidiyay lugta labaad waxay ku balansan yihiin garoonka Old Trafford
ma kula tahay markii Real Sociedad oo ciyaartoy dhowr ah inay ka maqan yihiin iyo Manchester oo Brian Bicirka ay marayso in 4 gool laga daba keeni karo marka waxaan eegi doonaa shaxaxa macquulka ah iyo ciyaartoyda oo ka maqnaan doona labada dhinac ayaa eegi doonaa Manchester waxa ka maqnaan doona ciyaartoyda kow Paul Pogba iyo Jones ayaa hubaal ka maqnaan doona waa rasmi Pogba iyo Jones ma ciyaari doonaan kulanka caawa sidoo kale Ole Gunnar Solskjaer ayaa cadeeyay in Scott McTominay Edinson Cavani iyo John van der Beek ayaa seegi karaan kulankan Ole ayaan doonaynin inuu halis geliyo tam ahaanshaha saddexdaas xidig sababtoo ah Ole Gunnar wuxuu ka taxadirayaa in ay waxyaalo dhaawac soo gaaraan ciyaartoydan saddexdan xidig waa Edinson Cavani waa Scott McTominay waa John van der Beek wuxuu u tartamayaa horyaalka Premier League saas ayuu leeyahay isla markaana la filayaa inuu ku soo bilaabo doono golahayihiisa labaad Dean Henderson Matic John Mata iyo Brandon Williams afartaas ciyaartoy ayuu ku soo darsan doonaa caawa shaxda sidoo kale Harry Maguire ayaa hal kaar jaalo ah ku jira ganaax Harry Maguire inuu macnaha hal ganaax uu kaga maqnaado waxa uu jirta oo kaliya hal jaale hadduu caawa hal jaale uu qaato kulanka xiga ma ciyaari doono laakiin waxa macquul ah inuu Ole Gunnar Solskjaer uu Harry Maguire uu liiska ka bixiyaa uu soo kordhiyaa labadan xidig Tuzembe iyo ciyaaryahan lagu magacaabo Eric Bailly sababtoo ah hadduu Harry Maguire caawa uu soo safo hal jaale uu qaadin karaa kulanka xigana oo wareeg 16 uu sheegi karaa marka waxa laga yaabaa inuu soo safo Eric Bailly iyo Tuzembe dhanka kale Real Sociedad ayaa weyn doonto labada difaac dhanka kale Real Sociedad ayaa weynaysa labada daafac ee kala ah Lenormand oo ganax ka maqan iyo Zaldu oo dhaawac soo shaxda macquulka ah ee labada kooxood hormarayna Manchester United goolka waxa uu gali doona Dean Henderson Williams Tuzembe Bailly Telles Fritz Matic James Mata Rashford Greenwood dhanka kale Real Sociedad waxa uu ciyaari doona Romero Crespo Zubedia Sagnan Nacho Monreal Zubimendi Moreno David Silva Porto Isaac iyo Oyarzabal labada shaxa oo macquulka ah ee caaw ku soo gali doonaan labada naadi ee Manchester United iyo Real Sociedad xogta kulanka tartanka waa UEFA Europa League waa Europa League garoonka waa Old Trafford waqtiga waa 12 habeenimo geeska Afrika meeshas ayaan ugu bixinaa barnaamijkeena oo ahaa hordhac Manchester United iyo Real Sociedad kulanka dambe oo xiiso leh waan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran janaalka Shumac Umada sidaas iyo nabadgelyo